waxa weeyaan war ciidanka qaranku muxuu u abuuran yahay ma inuu dadka laayo muxuu kaga duwan yahay adarkii waxa la oran jiray koofiyad asti waysan jiray maslax maxamed siyaad barre ma garan kariyo wuxuu kaga duwan yahay muxuu kaga duwan yahay kii la oran jiray dabargoynta saaqay halkan joogi jiray waxa weeye cidda dambiga gashay inuu ummadda dhexdeeda laga soo saaro waxaan idin cadaynayaa shantaas arrimood ee dhacay aanu hadda ka warramayno ma jiro mid kamida oo baaritaan laga sameeyay ma jiro mid kamida oo cid loo xidhay dadkan lagu dilay gobolka Sanaag waxay la mid yihiin dadkan lagu laayay gobolka Laascaanood shanta dil ee dhacay ee ciidanku geystay iyo sida ay u dhaceen iyo cidda geysatay ayaanu rabnaa inaanu ogaano oo helno xukuumaddu way ku fashilantay nabadgelyadii gobolka Sanaag ku fashilantay ceelaf way nabadgelyadeedu way ku fashilantay waxaanu aad uga xunnahay dilalka soo noqnoqonaya ee shacabka masaakiinta ah ee reer miyiga ah ee colaadaha iyo abaaruhu afeeyeen maalin walba xukuumadda iyo boolisku adeegsanayaan rasaas nool qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee laga soo doorto gobolka Sanaag ayaa waxay si adag uga hadleen dilal ay sheegeen in maalmihii u dambeeyay ay ka dhacayeen deegaanka Ceelaf Weyn taasoo ay sheegeen inay dilalkaasi geysteen qaar ka mid ah ciidamada booliska Soomaaliland waxaana ay sheegeen in xukuumadda Soomaaliland ku fashilantay amniga gobolkaasi oo kuwan xildhibaanada oo ka hadlaya arrintaasi iyo arrimo kale arrin aad u culus oo ku saabsan dilalka ka dhacaya gobolka Sanaag saad ogtiin dhamaan bilii ugu dambeeyay ciidamada qaranka Soomaaliland ilaa 5 qof bay ku dileen 5 kalena dhaawac halis ay gaarsiiyeen dadkan lagu dilay gobolka Sanaag waxay la mid yihiin dadkan lagu laayay gobolka Laascaanood waxa weeyaan xukuumaddu sida aan u malaynayo waxay qaadatay go'aan dadka in xabad rasaasa ay ku dhuftaan ciidamada qaranku Hargeysa ka dhacday Ceergaabay ka dhacday Laascaanood bay ka dhacday Burcay ka dhacday marka waxa moodaa in siyaasadii reer Soomaaliland ay isbedeshay in xukuumadda reer Soomaaliland maanta ay dilalka ka dhacay wadanka ay u haysato wax fudud xukuumaddu waxay ka warwarsan tahay gobolka Sool bay ka warwarsan tahay imika oo dilal badan ka dhaceen oo dadku kacsan yihiin oo imika shirar u fadhiya xukuumadda waxaan leeyahay war gobolka Sanaag dilalka ka dhacaya wixii la garanayo waxaan la garanayn runtii dhibaato weyn bay Soomaaliland keenaysaa gobolku uu dayacan yahay waxaad moodaa dhalinyaradii gobolka joogtay ninkii ka hadla dan qaran ka hadla shaqada waa laga eriyaa waa la soo xidhaa weligeed Soomaaliland kama dhicin waxa loo baahan yahay xukuumaddu si ugu dhaqsaha badan ay wax ka qabato dilalka ka dhacaya gobolka Sanaag xukuumaddu way ku fashilantay nabadgelyadii gobolka Sanaag ku fashilantay ceelaf way nabadgelyadeedu way ku fashilantay waxay maanta xataa door biday cuqaashi soo ururinay magaha ee dadka isu keenayay in la xilxido qaarkood oo lala kulmi waayo iyagoo nabadgelyo ka talinaya waxaad ogtiin dadka inay wadanka ka baxeen boqoradii wadanka joogay ka baxeen boqor bulmada wadanka uu ka cararay wuxuu ka cararay xukuumadda reer Soomaaliland oo boqor ka tirsan gobolka nabadgelyadu ka talin lahaa shaqadii gobolka ka socotay wax soo saarku way joogsatay biyada ugu muhiimsanayd war gobolku uu dayacan yahay dadku way baahan yihiin dadkii gaajo u dhimanaya maan leeyahay madaxweynuhu indhuhu ka qarsaday xukuumaddu way ku fashilantay gobolka haddii sidaa ku sii wado sida Laascaanood si ka daran baa ka dhigata gobolka Sanaag saaka umaanu iman halkaanu tacsi ka diro inaanu barodiiq sameeyno umaanu iman waxaanu aad uga xunnahay dilalka soo noqnoqonaya ee shacabka masaakiinta ah ee reer miyiga ah ee colaadaha iyo abaaruhu afeeyeen maalin walba xukuumadda iyo boolisku adeegsanayaan rasaas nool kuna dilayaan dabeedna arrinkaas aan cidna waxba ka qabanayn lagana garaabaynin runtii waxay ahayd shalayto ayaa ciidamo hogaysan oo aararyoodahay ka baxeen degmada Ceelaf Weyn waxayna u baxeen dad reer miyi ah oo xoolahooda daaqsanaya miyigoodana jooga halkaas oo aanay cidna soo weerarin oo aanay boolis weerarin dagaal soo qaadin cidna aanay la dagaalamaynin iyagoo baradoodii iyo guryahoodii joogan inta loo yimi la bacsaday rasaasna la dhacay ku dambeeyana uu shalay ku dhintay ilaahay u naxariistee abokor Cumar Ali
ayuu ahaa waxaa ka horreeyey 4 la mid ah oo isla reerka ah oo lagu kala dilay Ceeryaan Darar Weyne Cilif Weyn iyo kaa u dambeeyey shalatoo lagu dilay magaalada lahdo Qaloocato waxaanu dawladda ka sugaynaa waxaana daashaday inay yidhaahdaan baadhitaan ayaa la samaynayaa waxna aanay ka soo baxaynin baadhitaankaasi waxa ka soo baxa waxay iyagu jecel yihiin oo ah marxuumka ayaa khaldaan ahaa isaga ayaa hubaysnaa isaga ayaana soo weeraray war ninka lagaga duulay Cilif Weyn 40 kilomitir loogu tegay gurigiisa isagoo jooga la baacsaday oo rasaas lala dhacay oo meedkiisii la soo qaaday ninkaas ayaa gardarro sameeyey mise ciidamada halkaa ku duulay oo ugu tegey ayaanu qabnay inay gardarrada leeyihiin baadhitaankooduna wax allaalay wax natiijo wanaagsan oo ka soo baxayana filimaayo waayo waxay odhanayaan oo keliya waaba haddayba qaataan oo yidhaahdaan annaga ayaa dilay laakiin annagu saaka waxaanu u taagannahay cadaalad baanu ka doonaynaa ciddii wax dishay ee ninkaa dishay oo gacan ku dhiiglaah in la xidho oo wax laga qabto waayo dadku ma aha dee xayawaan maalin walba qof la tooganayo oo la dilayo meelaan loo raacaa jirin macquulla maaha maanta waa la damqanaynaa shacabkayagii aanu ku matelaynay halka kan uma barordiiqayno waxaan leenahay laascaanood ayaa waxaa la lahaa dad madaxa soo dubtaa wax dili jiray annagu ma hayno annaga ciidankii booliiska oo hubaysanaya dadkii laynaya oo tooganaya maanta kacdoon baa ka jira magaalooyinkii bariga oo dhan ilaa Garadag Cilif Weyn Ceerigaabo Ceeryaan shacabkii horta shacabka waxaan ugu baaqaynaa nabadda ha la ilaaliyo ilaa nasiiya waqti ilaa 48 saacadooda ayaanu idinka codsan inaad nasiisaan nabadda adkaysaan bal cidda ay xaajadeenaasi na gasho inaanu ka wada hadalo ayaanu u baahannahay waxse ayaan darro ah dee dawlad kula xaajoota oo wax ka odhanaysa ayaan jirinba meel allaale iyo ciddii aad lala dhaqmi lahaa ma jirto gobolkuna dad go'aankaa qaadan kara maaha iyaga ayaana arrinka ka dambeeyey maanta shacab isdilaya oo dagaal reerood oo socday oo colaad sukeeya ma jirin shacab nabaddiisa ku noolo gurigoodii loogu tegay oo la dilay arrinkaasi midaanu maanta waana damqayaa waa dhiiqbax buu shacabka ku yahay baadhistaas jooga saaka Cilif Weyn filimaayo waynuba ogaan doonaa laakiin waxa wax ka soo baxaya marxuumkuna waa khaldanaa annaguna waanu qaadanay inaanu dilay laakiin nama marayso waxaanu doonaynaa ciddii gacan ku dhiigla ahayd la bini aadan baa la dilay naf baa baxday ilaahay karaameeyey waa in horta cid loo qabto oo eedaysanihii la helo dilkaa ka dambeeyey xabadda geystay dadkaa rayidkaa laayey taas ayaanu doonaynaa in la caddeeyo waan idin salaamayaa shacabkana waxaan leeyahay ilaa xalito iyagoo hubaysan bay magaalada soo gelayeen horta nabadda inoo ilaaliya wakhti yar inaad nasiisaan baan idinka codsanaynaa ilaa 48 saacadood intaa aynu iska arkayno bal xukuumadda arrinkaana ka wada hadlayno dee nabadda laascaanood waxay ku duntay dadka laynayey tan laakiin maanta booliskoo laynayo oo nool oo xabad la dhacayaanu haynaa kacdoonkaas ayaanu ka baqaynaa inuu waddankii ka dhaco haddaan si degdega dawladda wax uga qaban waxaan leenahay waxaynu ka warhaynaa waddanku xaaladda uu ku jiro waxaannu aamusnayn muddo doora waxaannu u aamusnayn inaannu qaranka u tudhno waxaannu u aamusnayn inaannu ciidanka qaranka u tudhno arrinkaasi wuu joogsan waayey waa dilkii shanaad intii xukuumaddanu jirtay ee loo geysto dadka deegaanka ku nool waxay ka dhacday Ceeryaan waxay ka dhacday Darar Weyne waxay ka dhacday Cilif Weyn waxay ka dhacday Qaloocato waxay ka dhacday Karimbiyood waa dilkii shanaad ee loo geysto dad aan waxba geysan oo ciidanku u geysto hadda wixii ka dambeeya kama aamusi karno hadda wixii ka dambeeya kama dulqaadan karno hadda wixii ka dambeeya dhegta ma huban karno waxaan leenahay ninbaa aabbihii dawladdii dictatorka ahayd xamar ku xidhay oo dabadeedna markuu tegey baa la yidhi wuxuu xidhan yahay sirdoonkaa xidhay oo NSStaa xidhay oo wuxuu xidhan yahay war dabadeedna wuu soo noqdayoo markuu waddankii ku soo noqdaalay walbal warran wuxuu yidhi war aabbahay baa ku xidhan laascaanood baa ismaahin iyo jawaab la'aan ku maqan laascaanood baa dhibaatadeedii ku taagan tahay cid dhimatay iyo ismaahin aan dawladdu ka jawaabayn waxaan leenahay
waxaan aan ku celinayaa wax masiibadaa dhigay ergadii loo mashiiqsaday buu yidhi dawladda gaar ahaan madaxweynaha iyo madaxtooyada waxaanu leenahay qadiyaddan hadda kadib ma noqonayso qadiyad layska maahiyo qadiyad uun la soo qaato oo la yidhaahdo cid baa halkaa uun ku dhimatay oo dabeedna saa lagu dhaafo ma noqonayso falsafadda iyo fikradda ku saabsan ee madaxda qaar qabto ee ah in ciidanka aan la kala saarin inaan ciidanka la baadhin iyadoo aanay sax ahayn oo aanay sidaa weliba u shaqayn oo ciidamada qaarkood marka ay waxgeystaanna la xidho kuwa qaarkoodna la yidhaahdo ciidan baa wax dilay waa arrin qaldan oo ka hadhay digtaytaraddii siyaad barre iyo dawladdiisii siday u shaqayn jirtay ciidanku hadduu waxgeysto lama kala saaro waa fikrad qaldan islaamku ma qabo dawladda casriga ahina sidan uma shaqayso waxa weeye cidda dembiga gashay inuu ummadda dhexdeeda laga soo saaro waxaan idiin caddaynayaa shantaasi arrimood ee dhacay aanu hadda ka warramayno ma jiro mid ka mida oo baadhitaan laga sameeyey ma jiro mid ka mida oo cid loo xidhay baadhitaanku marka uu dhaco ee uu yahay baadhitaan transparency oo daah furan oo goobjoog laga yahay oo ummadda oo dhammi joogto haddii la doono cidda markaa shicibka ahi ha ku caddaato ha la yidhahdo iyaa dembiga geysatay laakiin waxaanu caddaynaynaa anu halkan ka sheegaynaa shantaa dil oo dhacay intii xukuumaddan ay xilka haysay mid ka mida oo cid loo qabtay ma jiro mid ka mida oo cid loo baadhayna ma jiro waxay la tahay inay tahay uma arkayno ama uma qaadanayno inay tahay accident inay wax iska dhacay tahay uma qaadanayno waxaanu u qaadanaynaa inay tahay dilal badheedh ah oo toos loo fuliyey dilalkaa badheedhkaa toos loo fuliyeyna u danayn maayaan in la sii daayo oo lagu eegto oo la yidhaahdo la qaban maayo ciidanka qaranka u danayn mayso qaranka oo dhanna u danayn mayso dadkan dhibanaahana u danayn mayso waxaan leeyahay oo aannu dawladda ku soo jeedinaynaa ra'yigeeda iyo madaxeeda inay samayso baadhitaan rasmiya oo aannu dhinac ka nahay oo aannu ogaanno shantaa dilba ka hadli mayno hadda ninkii ugu dambeeye shantaa dil ee dhacay ee ciidanku geystay iyo sida ay u dhaceen iyo cidda geysatay ayaannu rabnaa inaannu ogaanno oo helno waan sheegay oo waan ka digay inaan laysmaahin inaan laysmoodsiin inaan meelo kale laysku taartaarin waxaa laga yaabaa in dadka qaar yidhaahdo waxaa socdaa culaysyo kale oo laascaanood baa culays qaran ka jira waa run annagoo og in culays uu ka jiro laascaanood oo ilaahay ka baryayna inuu ilaahay qaboojiyo dadka reer laascaanood iyo garaadada talada hayana aanu leenahay arrinka gacanta ku dhiga oo dejiya oo wax danteen dhammaanteenba inoo ah maadaama aanu isku deegaan nahay inoo ka soo saara shirarka waxaan leenahay balaayo afka lagama dhowro hadda wixii ka dambeeya ma noqonayso inaannu ka aamusno ma noqonayso inaannu dhegta huwanno waxay nala tahay haddii ay dawladdu ka soo jawaabi weydo waxaan ku celinayaa soo jeedintii uu jiif caaqilka xildhibaanka ahi uu sheegay oo ah in dadku 48 saacadood arrinka ay gacanta ku hayaan sida ay waayeelku gacanta ugu hayo si aynu u gaadhno talooyin aynu ka midaysannahay talooyin aynu isugu nimaadno talooyin aynu ka wada soconno si aynu u gaadhno in arrinka ay gacanta ku hayaan oo nagu simaan baan u soo jeedinayaa waxaan kaloo deegaanka guud ahaan u soo jeedinayaa horena waan uga hadlay deegaanka in nabadgeliyo aynu ku wada noolaanno dhammaanteen dad isku mida baynu nahay deel hore ka dhacay baa jiray horaan uga hadlay wixii laga qabtay mooyaane wixii kale in la qabto ayaan iyadana soo jeedinayaa oo aynu halkeennii ka hayno waxaan leeyahay oo aan mar labaad ku celinayaa xukuumadda waxaa looga baahan yahay inay soo qabato ciddii dilalkaasi geysatay oo ay baadhitaan mariso garsoorka ciidamadu iyo xeeraalinta ciidamadu maxay u samaysan yihiin su-aasha u baahan in la isweydiiyo waa taa waxay u samaysan yihiin inay ciidankana xaqiisa iyo xurmada uu leeyahay mariyaan dadka shacabkaana xurmada uu leeyahay ay mariyaan garsoorka ciidanku waxaa jirtay maalin dhaweed waxaan dhegaystay garmaqal ku saabsan dacwad nin korneyl ah oo ciidanka sirdoonka qaranka ah
oo lagu haysto laba cashuu telefoonka qaban waayey oo maxkamad lagu saaray oo lagu xukumay waxaan idiin sheegayaa reer ciraaq baa axad saxaaba baa u tegey dabadeedna waxay laayeen saxaabo waaweyn oo kabaar saxaaba ay raggii ugu waaweynaaya dabadeedna waxay weydiiyeen inuu ibnu cabbaas baan filayaa waxay weydiiyeen duqsiga haddii aan dilo kafaara gud ma laygu leeyahay wuxuu ku yidhi maa asalukum can sakiirati wa arkabukum can jarimati maxaa iga weydiinaysaan wax yar dembi weynaa u samaynaysaan war garsoorka qaranka ee askari dishibliin oo corneyl rugta saraakiisha dishibliin 2 casho ama 3 casho loogu xiri lahaa maxkamadaha ku xukumaya muxuu u arki waayey ciidamadan dadka laynaya muxuu sheegi waayey shaqada uu garsoorka qaranku haya garsoorka ciidanku haya maxay tahay shaqada xeerlaanta qaranku haysa maxay tahay waxaan iyagana u sheegaynaa oo aanu u sheegaynaa garsoorka iyo xeerlaalinta ciidamada inay waajibkooda gutaan inay qarankan shaqada ay u xil saaran yihiin hayaan inay isu arkaan inay leeyihiin madax bannaani garsoor leeyihiin inay shaqadooda gutaan inay soo qabtaan oo raadiyaan shantaasi dil iyo ciddii ka dambaysay oo ay soo qabtaan tallaabadii ku habboonayd arrinta ceelafweyn ka socota dawladda dhaliil baan ugu hayaa marna ammaan uguma hayo taa marka laga yimaado hadda waxaa wixiiba soo ka maray laascaanood baa waxaa la leeyahay waxaa laynaya dad afka soo duubto aan la garanayn war maanta waxaa annagana haysata ciidankii booliska madaxa noo soo duubanaya waxaan maraynaa ku dhowaad 10 qof wax dhintay iyo wax dhaawacmayba oo baalmarsan labadii boolood markii hore arrintu ay istilayay ee arrinkooda ay ciidanku meesha u tageen war ciidan xabadii uu taagaba qof ku dhufanaya anu ma garan karo ma tadkiska ciidankeena ay kamid tahay intay madax qofkii madaxa qaadaba in xabada madaxa laga dhufto ma garan karo halkana lagu laayay laascaanood baa lagu laayay burca lagu laayay waxa weeyaan war ciidanka qaranku muxuu u abuuran yahay ma inuu dadka laayo muxuu kaga duwan yahay adarkii waxa loo jiray koofiyad asti haysan jiray maslax maxamed siyaad barre ma garan karayo wuxuu kaga duwan yahay muxuu kaga duwan yahay kii loo oran jiray dabargoynta saaqay halkan joogi jiray ma qabo in ciidanka qaranku uu sida u adeegsado waxaan aaminsanahay waxa soconaya oo dhami waa gef waana badheed waa wax ay xukuumaddu kula socoto waxaan rabnaa waan soo jeedinayaa waan ugu baaqayaa bulshada deegaanadaas inay soo baxaan oo hubiyaan ay soo bixin ay hadlaan oo ka soo baxaan garadag oo ay ka soo baxaan fadhigaab oo ka soo baxaan darweyne oo ay ka soo baxaan ceeriyaan oo ka soo baxaan ceergaabo oo ceelafweyn ay soo baxaan oo ay hadlaan oo ay muujiyaan dareenkooda iminka waxaan noo dhimanay waa kuwayga xasaanada leh ama kuwa saraakiisha inta laayo in la yiraahdo dee waa ciidan baa dilay wax kale oo noo harsan maanta ma jirto ma garanayo waxaan u sii eegano kaliya waxaan ka fikiraynaa 48 saacadood wixii ka dambeeya hadaan xal weyno inaanu kala noqono dawladda kalsoonida waddo kale oo maanta noo furan ma jirto waxaan leenahay dadku inay istijiyaan barxumkaasi wuu dhintay waxa inankaas la ii sheegay in xaas uu haystay 4 caruur oo rajo ah xaaskiisa waxa ku dhamatay dagaaladii hore 4 caruur buu korsanay waxa la leeyahay wax loo dilay lama garanayo saacadda taagnahay waxa alla wax loo dilay lama garanayo dhuxul buu shidanayay baa leeyahay carruurta masaafkiisina dhuxul buu shidanayay baa leeyahay waxa weeyaan 100 wado oo ibnaadka loo soo qaban karo ayaa u furan 100 wado oo wax loogu sheegi karo ayaa jira waxa sheegaya waa wixii aan intii aanu qaadi karaynay way ka badatay madaxweyne ma qaadi karo inta wax dhaafsiisan waxa noo haran oo kaliya waxa weeyaan in la laayo ku xasaanada leh oo leeyahay ku xasaanada hebel baa xalay dhintay halkan hebel baa ku dhintay wax noo dhiman oo kale ma jiro waxaan soo jeedinayaa sida farkaas xildhibaanadii iga horeeyay ay tilmaameen in la sugo oo laga war sugo waliba anigu waxaan ku rajo weynahay oo aan qirayaa inaan 48 saacadoodna wax soo baxaya halkan idin ka soo baxaya jirin waxaan idin sheegayaa oo aan si kor waliba ugu dhawaaqayaa war halkan wax idin yaala ma jiraan markaan runta idin sheego waxaan leeyahay waxaanu sugaynaa inuu waajib inuu sugnaadno waxa waajib inagu ah inaan go'aan wada jira qaadano inagoo isu dhan madax dhaqameed waayeel iyo ergaba Axmed Doolon Cable TV Hargeysa